وسؤال في عن فعالات marka ugu horeysa xeerka ingiriiska ka socda waxa weeyaan ballamaha GP-yada inta badan meel dhifamaahay inta badan waa 10 minutes 10 minutes kana ogaada inay dad badan oo 10 minutes kaas oo kale qaba isku daba xijinayo marka appointment-kaaga ma ku dhamaado qof baa ku xiga qof kale ku sii xiga qof kale ku sii xiga marka sidaas ay tahay ballamahooda marka GP-yada laftigood inta badan ma helaan break dadka u dhaxaysa haddaanay waqtiga qadada ahayn so that's why badankooda u xoojiyaan yiraahdaan 10 minutes gudaheed waan isku dayaynaa inaan wax kasta ku dhamayno marka 10 minutes gudaheed maadaama adigu og tahay horta marka ugu horeysa waxa muhiima inaad waqtiga hore timaado GP-ga waayo miridka iyo labada mirid aad iska luminaysid it's yani adigu ka cunaya oo ka dilaya waqtigii marka waqti hore baad imanaysaa sometimes GP-ga waqti hore u dhamaynaya 5 minute intaan ballantaadi gaarin hadduu arko inaad joogtid oo isaguna u dhamaystay waxa laga yaabaa inuu 5 minute ka horba ku yeelo oo waqtigaagu maaragtay soo yara bato adigana waxa muhiim ah inaad gurigaaga adigoo jooga oo ballantaada sii diyaarsaday inaad buug iyo qalin soo qaadatid oo sii qoratid waxyaabaha aad jeceshahay maalintaas inaad GP-ga weydiisid si aad wixii u kala ilaawan ama u kala gafin hadduu af ingiriisiga kugu adag yahay oo ilmahaagu maaragtay af ingiriisi kugu qori karo liis ahaan yani inaad u baahan tahay for example daawada in lagu sameeyo ama aad leedahay qufac baan qaba ama aad leedahay xanuun halkaasaan yani ka cabanaya inaad sii qortid baa muhiima inkastoo 10 minute loogu talagalay hal shay haddana haddaad dhowr shay ka cabanaysid waad sii qoranaysaa oo waxaad oranaysaa marka ugu horeysa waxaa liiskaasaan qabaa dhakhtarkaad u dhiibis waxaad oranaysaa maxaad igala qaban kartaa